launcho oo ay magaalada Hargeysa ka hirgeliyeen muwaadiniin ka soo noqday dhinaca qurbaha hoteelkan casriga ah hotel dhinaca cuntooyinka isla markaana qaabab casri ah oo dhinaca cuntada ku soo kordhiyay fagaaraha iyo saaxada hoteelada cuntada ee magaalada madaxda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa furitaankiisii waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira xubno ka tirsan golaha xukuumadda agaasimayaal maareeyayaal iyo waliba dadweyne aad u tiro badan hoteelkan oo cuntooyinka kala duwan oo sameynaya ay yihiin kuwa casri ah isla markaana qaabab kala jaad loo diyaariyay ayaa waxa dareenkooda ku aadan furitaanka hoteelkani ka dhiibtay mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb galay furitaanka hoteelkan ugu horeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha wasiirka mudane Bashiir Cabdi Xariir ayaa tilmaamay in ay tallaabadani tahay mid qayb ka ah siyaasadda xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ee dhiirigelinaysa maalgashiga dalka. hoteelkan cusub ee caawa la furay Royal oo laga furay magaalada Hargeysa waxa sida aad sheegtay maalgeliyay dad reer Somaliland oo dibadda ka yimi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sida ay xukuumadda waa siyaasadeeda maalgashiga iyo ummadda lagu dhiiriyo dalkooda inay wax galiyaan oo ay qurxiyaan oo sharaf u yeelaan waxay u muuqataa inay tahay goob cusub oo runtii loo baahnaa oo indhaha dadka soo jiidanaysa oo dadku maanta wuxuu u baahan yahay marxaladda dalku marayo in shay waliba uu la kaalin galo ayuu u baahan yahay oo halkeenu joognay aynu hore uga marro sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdilwaaxid Cabdilqaadir oo isaguna uga faa'iideystay waan ku faraxsanahay muwaadiniinta reer Somaliland ee dibadda ku nool dalkooda ku soo noqdaan xukuumaddu way dhiirigelinaysaa muwaadiniinta qurba joogga ahaa wax kasta oo loogu sahlayo inay dalka ku soo noqdaanna waa loo sameeyay waxay u egtahay horumarku xukuumaddu wado inay barbar socoto kii ay wadeen qurba jooggu arrinkaas oo iskaabaya iyo bulshada guud ahaan bulshada dalka ku nool kuwa dibadda iyo xukuumaddu way iskaabayaan sharaf weynii ah aniga oo ka soo qayb galay furitaanka hoteelkan restaurantkan la magac baxay Royal Lounge ee ay ka tahay mulkiilaha Rooda Cabdi Kabatole iyo bahdeeda waxa kale oo sharaf weynii ah iyada oo caawa ay halkan dadweynihii sharafta lahaa martidii qaaliga ahayd ee ka cashaysay ay lacagtay ay ku casheeyeen percentage ka midihii ay tagi doonto xarunta agoomaha magaalada Hargeysa sagal idla colaad waxa tahay mulkiilaha hoteelkan cusub ee maanta la furay inuu hadda joogno caawa joogno inta ka dambeysay waxa keenay waxaan ahay qurba joog ka soo guuray London markaan wadankayga imi waxaan eegay waxa jiro wax available wadankii markaan eegay waxaan ideaha choose garay inaan dhiso restaurant just not any restaurant waxaan choose garay restaurant la mid ah kuwii Europe waxaan tusayay ummadda inaan Hargeyso Europe laga dhigi karo ya Europe waxba nagala maqneen haddii cunto noqoto haddii qurux noqoto haddii dal noqoto marka taas ahaan bay horta ideaha ay ka timi